Ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Kenya Raila Odinga oo maanta ku geeriyooday waddankaasi Hindiya waxa uu ku dhashay isbitaalka Maseno Church Missionary Society Hospital ee degmada Kisumu ee gobolka Nyanza 1945. Sidoo kale taageerayaashiisu waxay u yaqaaneen Akwaaba. Waa siyaasi Kenya caan ka ahaa muddo dheer. waxaynu ku eegaynaa warbixinteenan taariikhdiisa. waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee dalka Kenya. waxaa la doortay 2008 waxaana uu hogaaminayay dowlad wadaagga 2008 ilaa 2013. Raila wuxuu dhowaan u tartamay xilka guddoomiyaha midowda Afrika oo markii ugu dambeeyay uu ku guuleystay Maxamuud Cali Yuusuf oo hadda ah guddoomiyaha midowda Afrika. Odinga ayaa 5 jeer ku guuldareystay tartanka madaxweynenimo ee Kenya waxaana ugu dambeysay doorashadii 2022. Raila waxaa dhalay madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee dalka Kenya ee loo yaqaanay Jaramogi Oginga. in ka badan 20 sano ayuu xildhibaan ka ahaa xaafadda isku raranta ah ee weyn ee Afrika ee loo yaqaano Kibera. Mr. Odinga waxa uu leeyahay dad aad u jecel, taageerayaashiisuna waxay ku naanaysi jireen Baba, Aabaha, Agwa, oo laga soo miinguuriyey astaanta xisbigiisa doorashadii 1997. waxa uu dib ugu soo noqday dalka dibaddiisa kadib markii dib ay u yegleeleen siyaasadda xisbiyada badan ka hor intii aan la soo dooran xildhibaan. waxa uu door muhiima ka ciyaaray soo afjaridda 10 sano oo xukunka xisbiga KANU kadib markii uu taageeray Mwai Kibaki oo u tartamayay madaxtinimada 2002. markii ugu horeysay ee madaxweynenimo isku dayay waxay ahayd 1997 markaasi oo uu galay kaalinta saddexaad. Odinga iyo taageerayaashiisu waxay rumaysan yihiin in laga boobay guushii uu gaaray 2007 markaasi uu hogaaminayay xisbiga loo yaqaanay ODM isagoo la tartamayay Kibaki. doorashadaas ayaa ahayd mid u horseeday rabshadaha qabaa'ilka ku salaysan ee sababay inay ku dhintaan 1,300 oo ruux ayna ku barakaceen 600,000 oo qof. waa maxbuus siyaasadeed waxaana uu haystay rikoorka inuu yahay maxbuuskii ugu muddada dheer ee Kenya. halgankii uu kaga soo horjeeday kalitalisnimada hal xisbi waxaa la xidhay 2 jeer laga bilaabo 1982 ilaa 1988 ilaa 1989 ilaa 1991. intii lagu guda jiray xukunkii Daniel Arap Moi kadib isku day afgembi oo dhacay 1 Agoost sanadii 1982. Raila Odinga waxaa la xidhay waxaana uu ku dhacay xukuno kala duwan ay ka mid tahay khaainul wadannimo oo tii loo xidhay iyadoo aan caddayn loo hayn.